السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي كسر دوادة channelكنا Somali Power. وقت دير كدب اسكو لابا شوف يعني يا سمعني vlogs bay ka shidan tahay barnaamij cajiib ay dhigeen doona haatan wax yar kadib barnaamijkan dhaqankeena ku soo bandhigayno Soomaalinimadeena ku soo bandhigayno waa ka dhici doona jaamacadeena Pamukkale University barnaamijkaas ayaan haatan wax yar kadib aadi doona dhamaantiin daawasho wacan barnaamijkan kaligeena manihin Yemen iyo Filistiin way nagu jiraan anaguna haatan dabcan waan ku jirnaa barnaamijkaas marka saabtiin daawasho wacan haatan istiyaaris ayaan galaya waan isku soo laabanay sabta ugu dambeeyay waan sameynay aniga iyo saaxiibkay محمد يونس نكاس باني دي برايا هاتن يونس بي السلام عليكم. سودان السلام عليكم. Somali Kardashlerim. Where are you from? I am from Sudan, but really I'm from Somalia. From Sudan and Ethiopia and Eritrea. We are Kusholo. You know any Somali language? Any word? No. No Somali Setai? language. What? Setai. Setai. What does it mean? Kabahay ban I know that. I know. كبحي بيبي كبحي لا ساعات دمانتين نوضع كبحي هوشي كبحي كبحي بافور كبحي نيني يا بنتين كبحي وبرتايكا برشاد ولا نيما نقبضة برشاد ولا نيما نقبضة waata asxaabta haatan gaariga waan ka soo degnay waxaana u sii soconaa meesha bandhiga ka dhici lahaa runtii barnaamijkan waa barnaamij Soomaaliyeed oo muhiim ah waqti dheer aan diyaariskeeda ku jirnay aniga ninkii maskiinka ahaa Maxamed Faaraxna hees baan ku dhufarnaa kulay iyadana waa arki doontiin marka waa ka asxaabta dhamaantiin daawasho wacan ayaan leeyahay oo barnaamij aad runtii si fiican u jeclaan doontiin soo siyaas maaha Sudan soo saas maahan Sosas mahan bro. ku dhufo heesti ku dhufo ka baxay Kabahay ban kabahay ban. waata asxaabta markii beeshii barawada imaaday asxaabtii Soomaaliyeed oo imaaday dhamaantoodna waa kuwana Shaafici Bey halala maanta baa joogay janliin programka maanta wadankeena soo bandhigayna ku hadlna Soomaaliga dadka ku daawanaya waa Soomaali wadankeena Soomaaliyeed baan maanta soo bandhigayna waxa wadan khaas u nahay hidiyo dhaqankeeni ha ahaato maxaa la yiraahdaa wala saqo ha ahaato dhaanto ha ahaato xamaraawi ha ahaato maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa soo wada bandhigi doonaa dhammaan waa isku qasnay music oo idil waxaan rajaynaynaa inaan wadankeena sida ugu macquulsan uguna quruxda badan maaragtay u soo bandhigno dadka dhanna aan tusno inaan nahay dadka Soomaaliyeed dadka adduunka dhan ka duwan dad maaragtay landheerayaal inaan nahay inaan maaragtay adduunka aan dhaqankeena iyo maaragtay aan ka duwanna ummadda idil Afrikaan aan ahayn Carabna aan ahayn Soomaali baynu nahay 2 hours later waxa way qof walba iyo arday walba iyo cunug walba oo yaro Soomaaliyeed waxaan ku rajaynayaa inuu barto dhaqankiisa adduunka uu la tago wadanka Soomaaliya hadii la joogo dhanka lama xiiseeyo laakiin markaad adduunka dhex gasho dood ku qasbantahay inaad wadankaaga taqaan waa tahay mahadsanid abwaan sare aba dhaantada u imaanay markaan aba dhaantada ayaa la bay maxaa leedahay كورن بندقة سكوب صوت يا رسالة. والله دور بريباس معلك دانتين أتاعي واحد الشيء ويا محك كتير. كل ما دي معلك شيء لكن يكسر معك دانتين كانوا هاي أوفريس. واتا أنا وكنت قوي لكن. أنا قاعد أخذ كيرن فالين. هي وارك دانتين ما نسافت مركز اللي جارو قيبت دانتين مركز سفع له داون دانتين كان معنا كدانتين ويرون. أصحاب تهاتنا يا سوق بتمتخن فتاله رابسته. يو نقول كرا نينك ما أنت هاست give me freedom كلا كعربة محمد فرح كسودو صاحب channel كاي أصحابته حالة دمان وحاول نينك وحير نينك أوفر خاصم ورنينك مؤمن كحال هذا فرقان شقة لا شقة أو شقة الوجود channel كاي أنت تقول مغنى تدكوي كتبين كنالك أنيك إديم مخنين أنيك إديم مخنين بنت أتا هاست كلا كعربة تذكر هيستو حاول ويفين فلك سومال مجا يعني سوعنا عاو حاول عرق عندنا إسكاله واحد كلام الأول هيستو حكى لك عرب اللي بدينا وشيتين وأنا داويت تنسيف عن
maxamed farax guulaan ku rajayna saaxib sidoo kale brother. noo wada hay asxaabta gudoomiye ka waran intee soo diyaarisay barnaamijka waxaa diyaarinay wuxuu laga qaata 2 asbuuc insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan barnaamij qurux badan soo bandhigno insha Allah si fiican ka waran meeqa maalin la diyaarinaysay barnaamijkan barnaamijka waxaa diyaarinay ku dhawaad 2 asbuuc yani 2 isbuuc 2 asbuuc guulaan ku rajayna gudoomiye waa kugu tashanaa insha Allah cabdiqani Ayib. waa xarunta maxamed farax barowadii ugu dambeysay miya ya haye kow labo براوز قدام بيسوا أصحاب نوض برنامج كان بقولنا وحاول عني أنا يا أسكله waa tahay noo عشان صومالي أسكله هو معنا وحاول marka sidaasaa leedahay ninkan idi bar asxaabta siyaad baa la dhahaa waa nin soomaali dhalada وسيد صومالي أصلا صح si fiican haye maanta maxaad uga qayb galaysaa barnaamijka barnaamijka dhaanta ciyaaraynaa soo wadayna xaram baasinahay waa tahay guula ku rajeynaa oday dhaanta wacan asxaabta haatan barowadii ugu dambeysay waan sameynay barnaamijkaasi toos wax yar kadib uu bilaabanayo dhammaantiin daawasho wacan
tahay asxaabta waa daawateen ila filaa ciyaarta dhaqanka macaan aan soo bandhignay caawa kaalintooda waa gali karnaa ila tahay haatan safka model ayaa jiro oo Soomaaliya kadibna safka waa aniga iyo Maxamed Faarax iyo Give Me Freedom daawasho wacan barnaamijkii uu soo ilaaday haatan sawiradii ugu dambeeyay la galooyaa saxnada ninkii Maxamed Faarax ahaa iyo anigana waa daawateen aan filaa bandhigii aan soo bandhignay inkastoo aniga waliba aan daawanin laakiin idinkaana dila daawan doonaa insha Allah haatan barnaamijka tartiib ayuu soo ilaanaya dadkii way wada baxeen sidaad u wada jeedin idinkana barnaamijka waan ka heshanaya filaya vlogskeena halkan uu ku egyahay wax yar haatan waan baxaya oo gurigan tagaya Said baan u daalay runtii waa inoo kulantii dambe iyo fiidiyoo kale macaan asxaabtu waxa way barnaamijku waa noo soo dhamaaday si sharaf iyo ciise leh ku soo dhamaaday 4 saac iyo bar habeenimo la marooyaa barnaamijka calaga ku qabsan waa kuwana sawir badan iyo barnaamij badan oo isku soo xigtamay alxamdulillah wallahi waa ka baxsatay Maxamed Faarax kulli dadku way daawan doonaan laakiin si cajiib ah uga baxsatay warniyo Soomaali oo dhimanayna oo fahantii waa kuwana mudadin kale wala soo wax sinji wadan laga soo tagay malaca waxa waa sifan yahay asxaabta halkan waxa ku soo xiranaa vloggeena yara aan ka tagnay barnaamijka dhaqanka waa inoo kulantay dadka xiiso leh iyo barnaamijyo kale oo macaan bye bye